ciidanka kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan oo jab culus lagu gaarsiiyay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Howlgalladan ayaa waxaa hogaaminaya abaanduulaha guutada 16aad ee kumaandooska Danab Gaashaale Aadan Jeele, waxaana si gaar ah loogu fuliyay deegaanada Baqdaad iyo Basra oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmada Jambaluul oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa lagu burburiyay howlgalkan saldhigyo waaweyn oo argagixisada ay ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo maxkamad beenaad dadka shacabka ay ku baadi jireen. Ciidanka kumaandooska ayaa howlgalkan qorsheysan ku dilay horjoogihii qaraxyada ee argagixisada u qaabilsanaa deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maleeshiyaad kale. abaanduulaha guutada 16aad ee kumaandooska Danab Gaashaale Aadan Jeele oo la hadlay warbaahinta codka ciidamada ayaa sheegay in howlgalladan argagixisada lagu gaarsiiyay jab culus, waxaana xusay inay ku raad joogaan firxadka maleeshiyaadka Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka kumaandooska ayaa deeq dawo iyo raashin iskugu jirta gaarsiiyay qoysaska ku nool deegaanada howlgalka laga sameeyay, iyagoona baaritaano caafimaad oo bilaash ah ku sameeyay dadka shacabka ah. ciidanka kumaandooska Danab ayaa kordhiyay howlgallada lagu baacsanayo argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya dhulka hoodka ah.